السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته ميل ولبو آيدين جوجتان وصاحبكين سيد علي أو إذن له كسو دوادا كانالكا كريبتو أو لغا هادلو لعجها ديجيتالكا كريبتو كارنسيغا ليرادو وانا كانال كوباحا أفكا الصوماليغا إسلامركانا أصحابتا كريبتو جعل كساعدية قيبها كلا دوان كريبتو كارنسيغا أي leedahay iyo qaabkii ay lacagahoodan digitalka ay ugu xafidan lahaayeen kambiiradooda ama taleefanadooda si sakuur ahna ay lacagtooda halkaasi ay ugu jiri lahayd iyo qiimeynta suuqa iyo xaaladihiisa kala duwan iyo in bulshadu ay iska saacido hadba waxyaabaha kiribta iska bedelo oo ah kuwo had iyo goor inta badanna si xad dhaaf ah u kala badbedelma caawa ama maanta xilli waliba saacad waliba oo ay idin tahaba waxaan jeclahay inaan idinla wadaago coinkan la yiraahdo Cardano amaba aada loo soo gaabiyo ADA-ga la yiraahdo Cardano oo ah lacagaha digitalka mid kamid ah isla markaana ah coinka la dhihi karo scientific science ayuu ku dhisan yahay oo qaab jaamacadeed ah oo jaamacadaha scientific ahaan looga soo diyaariyo oo warqado qora isla markaana protocolka uu ku dhisan yahay uu yahay protocol aad dhinaca security-giisa uu uga wanaagsan yahay coinan aad u fara badan oo digital ah caawa waxaan jeclahay inaanu idinla wadaago update cusub oo ay soo wadaan oo muhiim u ah qof waliba oo haysta coinkan la yiraahdo ADA ama Cardano in uu la socdo oo ah update aad u muhiim ah qof waliba oo haystana anfacaya haddii kale ay laga yaabo inuu kala kulmo culaysyo inta update-kaasi uu ka heli doono balse marka hore waxaan jeclahay asxaabta aanan haysan in aan haysan walletka la yiraahdo Daedalus wallet oo iyadu ah walletka ugu weyn ee uu isticmaalo protocolkan ama coinkan la yiraahdo Cardano ee loo soo gaabiyo ADA ayaa la yiraahdaa walletkiisa Daedalus wallet waana wallet aad u weyn waxyaabo fara badan xambaarsan mustaqbalkana lahaan doonta in coinka aad haysato uu stake aad halkaas uga samayso networkana aad qayb kaga qaadato systemka governance-ga ah ama system dowladeedka mustaqbalka ah ee ay soo wadaan company-gan ama coinkan la yiraahdo Cardano aad kaga qayb qaadan karayso hadhow protocolkaasi oo noqon doona system dowladeed mustaqbalka maamuli doona halka uu mustaqbal ahaan qaban doono coinkani iyo waxa uu doonayo in dunida uu la wadaago oo bulshadu ay noqon doonto bulshadu in ay si aadah iyaga oo xorah ay uga qayb qaataan hadda company-ga ama coinkani Cardano wili waxa uu si federal ah gacanta ugu jira saddexda entity oo kala duwan ee la yiraahdo IOHK Omergo iyo Daedalus ama Cardano Foundation saddexdaas ayana si federal ah u maamula waxaana laga yaabaa update-kan 1.5 ee shali marka uu yimaado in systemku uu decentralized noqon doono isla markaana Daedalus qaybta ugu weyn ay iyadu ka qaadan doonto in systemku decentralized ama qaab loo wada madax bannaan yahay oo qof waliba uu ka qayb qaadan karayo in protocolkani uu xubin ka geysta uu noqon karayo waana update aad u muhiim ah isla markaana wax fara badan aad ka baran doontaan waana coin mustaqbalkiisu ay aad u wanaagsan tahay iminka jooga 4 senti laga yaabo mustaqbalka halkii ugu sareysay uu tagay xilligii crypto ay wada cararaysay $1 iyo wax buu tagay iyo 20 haddii crypto ay suuqoodu soo noqdo oo orod bilowdane qofkii maanta 4 senti ku hela waxaan isleeyahay Janis weyn waa uu helay balse lama garan karo iyo suuqu waxa uu noqon doono balse mustaqbal ahaan waxa uu ka wanaagsan yahay coinan fara badan oo iminka asxaab fara badani ay waqti ku lumiyaan coinkani waxaan jeclahay in hadda aan bilowno oo aan sameeyo installation ama soo dejin aan sameynayo Daedalus wallet-kan version-kan la yiraahdo 0.12.1 oo mainnet-kiisana ay ka dhigan doonaan DSL-kiisa 2.01 oo mainnet-ka window ayaana ku soo dejinayaa waana jeclahay inaanu si degan u wada daawano qaabka ay noogu dhamaystirmayso soo degista wallet-kani iyadoo ay aad u fududahay isla markaana aadan wax dhibaato ah kala kulmaynin adigu oo aad dooranayso halka aad ku install garaysanayso waxayna ku siinaysaa kalsooni ah
in hantidaada aad adigu gacanta ku maamulato. Exchange-ga haddii aad uga soo tagto waxaa dhici kara wixii maalgoog qisadii ahayd ee hore u dhacday iyo tii daraad dhacday oo kale ee Canada ka dhacday ee Quanterigo exchange-gii ahayd oo 190 milyan lacag ka fara badan la yiri nina Hindiya warqad dhimasho kasoo samaystay oo $1 ah in haddana ay noqoto arrintu wax iska halis ah. Marka halisyadaasi oo dhan ayadoo ay jiraan, haddii aad exchange ku isticmaashid waxay ku fiican tahay haddii aad sameynaysid directorkii ayaa computerkiisa ay ku jireen oo script ay ku ahayd wallet-yadii. Marka ninkiina waa dhintay, lacagtaadii waxaa waaye meel cidla ay ku baxaysaa. Marka waxaa fiican mar waliba in haddii aad suuqa sarifka joogto ama exchange-ga aad isticmaalaysid u dirso wixii aad rabta kasoo samayso saacad 2 saac 3 saacadood intii aad awoodo kasoo dirso oo taleefankaada kusoo dirso ama computerkaada kusoo dirso hantidaadii. halkaasna ku ahaato adigu shakhsiyadaada in systemkan ama waxaani ay noqdaan waxaad adigu gacanta ku maamusho. waxaani marka ay noqdaan waxaad adigu gacanta ku maamusho waxyaabo fara badan ayaad ka badbaadaysaa oo ah dhacleynta crypto aad iska taqaanid. lagu dhihi karo protocolkii waxbaa qaldamay oo waxa waaye exchange-gii waa la xagareeyay ama ay cilad kala dhacdo ama lagu yiraahdo DDoS attack jiro oo maintenance aan galnay oo log waaye oo qof ma soo gali karo adigana aad u baahneed lacagta xilligaas oo kale inaad ka saarato. marka way halis badan tahay, way fududahay qofku inuu ku fikiro waxa qofkana ii haynayo, sababtoo ah bulshadu inta badan waxa ay difaac kula jirta oo ah inay dhahaan xilliyada oo suuqa isbedelayo kale inaad hesho access degdeg ah. haddii macnaha waxaan ka wadaa tusaale suuqa kor u kacay waxaa laga yaabaa exchange-gii aan wax u dirsanaya ama haddan soo nibdaada haddaad tiraa oo kale laga yaabo kor u kacaas yar oo kale oo suuqu inuu soo noqdo laga yaabo. haddaad ka faa'iidaysan lahayd waa laga yaabaa exchange-gu qaybtaas oo kale inaad uga faa'iidaysan karto marka suuqu uu daqiiqada ama 20 daqiiqo 30 daqiiqo oo kale uu meel fiican u ordayo oo kale haddii lacag ka tahay exchange-gu waad kaga faa'iidaysan kartaa. balse intaas aad fiiriso waxaa ka daran in ayagii oo dhan weydaayadani oo bad kale kuwa horseedi karaysa iyo halisyo kale oo fara badan. marka qofkii crypto ku haysta exchange ha ogaada waxaas wax uu leeyahay inaysan ahayn waxa aad leedahay inta ay gacantaada ku jiraan ama maamulkaada aad hayso maamulkiisa aad hayso adigu. inta maamulkiisa aadan hayn oo aad qolo u hoos fariisanayso wax weyn oo aad isku soo kordhin karayso ma jirto. waxaad ku xiran tahay qoladaas iyo waxa ay ku dhahaan. waxaanina waa wax digital ah, wax la qabanayo ama la taabanayo ma aha, waa wax internetkaas way ku xiran. waxay kaaga xirnaan karaan exchange-gaas ama waxay kaaga xirnaan karaan computerkaaga adiga aad haysato ama taleefankaaga haddii uu ammaankiisa aad ilaalin karto. waana jiraan qaabab fudud oo ammaanka computerkaada loo ilaalin karo. waxaa ka mid ah in aadan website-yada qaarkood aadan ku gelin backtrack ama trojanka kugu reebi karayo, in aadan muuqaala aadan aqoon iyo wax aadan aqoon oo lagu soo diro ama emailkaada soo galo oo kale aadan taabanin ama aad eegto linkiga qaybta hoose ee halkani oo kale marka aad website-ka sidan u gasho oo kale in ay lahaato https kaas oo kale oo secure protocol-ka ah iyo waxyaabo fara badan oo laga eega ayaa jira ayagana website-yada aad booqanaydo oo kale si ammaankaada uu uga sugnaado dhinacaas computerka in aan wax gadaal aysan ka soo gelin oo gadaal aan laga maamulan adigoon ogeyn. taasna waa ay kaa saacidi karaysaa inaad xafidato. coinkan haddana aan dhaho Cardano la yiraahdo ama ADA ama ADA loo soo gaabsho waa coin 3 baab isku haya iminka. waxa ay hadda wadamadan indhayarta Asia ka mid ah ay ka fureen oo ay ka bixiyeen kaar aadahan dukaamo wax looga gato. waxa ay kaloo iminka gacmaha ay kula jiraan wadanka Ethiopia oo kale oo aynu darisnahay oo ay dhinacan kafeyga oo saadjeenka la yiraahdo ay ka saacidayaan oo ay socdaan arday ay tababarooyaan oo halkaasi jooga. wadanka India oo kale iminka waxay ka fureen kuliyad kale oo dadku ay
lagu barayo programmingka si bulshada wadanka India ku nooli ay qaab ganacsigani ay Cardano wado ay qayb uga qaataan bulshadana wax badan ay ugu soo kordhiyaan iyo iyaga oo ku rajo weyn in mustaqbalka ay ATM-yo hadda wadanka Japan iyo Korea ayaan jeclahay mid ka mid ah labada siiba Korea in ay geeyeen ATM ama mashiinka darbiga ee lacagta laga saarto oo Cardano looga saarto balse weli projectyadaasi ay wadaan ama simsamyadaasi ay wadaan ma aysan u xoojin dhinaca dunida maadaama kambanigani IOHK la yiraahdo ee maalgelisa iminka coinkan Cardano la yiraahdo dhinaca developeradooda iyo shaqaalahooda iyo entity-ga kale ay wadaagaan ee Emergo oo kale iyo Cardano Foundation intuba waxa ay xarunteedu u yahay wadanka Japan oo halkaas ay ku taalaa oo input output Hong Kong ayaa laga soo gaabiyaa IOHK-geeda waana company la dhihi karo transparency-giisu waa uu aad u wanaagsan yahay marka loo eego coinanka kale ee cryptocurrency-ga ah hadda walletkii ayaan jecelahay in aan noo set up garayo halkani desktop-ka ah ayaana soo dhigay waana set up garaynayaa waxaana arki karaynaa stebyada aan marayno taasina waxa ay ka saacidaysaa in aadan wax qaladahi kala kulmin isla markaana hadhow automatic update-ka marka ay ku weydiiso ee 1.5-ka ee Shani waxa uu noqon doonaa update aad u muhiim ah haddii kale xanibaad aad kala kulmi doonto asxaabta exchange-yada ku haysatana waxaan dhihi lahaa hala socdaan coinka Cardano ee exchange-yada ka yaalo in exchange-gu update-ka Shani ee 1.5 ay taageerayso taasna waxaad ka ogaan kartaa in aad exchange-ga aad u dirto form oo kale oo tiraahdo Cardanaha oo update-kiisa soo socda ee Shani waad la socotiin oo waad u diyaar garoobaysiin update-kaas sababtoo ah haddii kale waxaa laga yaabaa adigu computerkaadu haddii update Shani-gii ay 1.5 aad haysato exchange-guna aysan update garaysanin in aadan awoodi karaynin inaad exchange-ga lacagtii kaa taalay aadaha ahayd ama coinkan Cardano la yiraahdo ahayd in ay adigu kusoo gaarto taasna waxa ay keeni karaysaa xanibaad dhinaca in withdrawga markaad sameynayso aad soo dirsanayso oo aad usoo dirsanayso walletkaada inaad kala kulanto xanibaad dhinaca exchange-ga ah maadaama update-kani uu update aad u muhiim yahay isla markaana systemkii federaalka ahaa uu usoo rarayo qaab aan la kala lahayn ee decentralized-ka ah oo qof waliba uu awoodi karayo xorriyadiisa inuu uga qayb qaato hadda waxay noo soo saartay inaanu dalbano luqadda aanu doonayno luqadda Ingiriiska ayaan dhahayaa oo waan doonayaa oo aan isleeyahay bal waxoogaa ma ka yara dhaga li'id haddii kalena waa isla fahmi isla keeni karaysaa haddii kugu dawaqdo tooniskii waxaasoo dhan ayaad akhrinaysaa oo halkan ku qoran iyo agreementyadii iyo waxaasoo idin ayaad leedahay waxaan markaad akhriso wax fiican wax badan ayaad ka fahmi karaysaa qaabka ay u shaqeyso wallet-ka iyo waxa kale ay leedahay hadda synchronization ayay sameynaysaa oo waxa ay soo dejinaysaa oo computerka ay kusoo dejinaysaa intii transaction ama la isdhaafsaday ee uu coinkani intii uu suuqa yaalay iyo intiisii hore oo dhan blockchain-kiisii oo idil ayay halkani keenaysaa waxayna qaadanaysaa waxoogaa daqiiqada ah ama xitaa laga yaabo saacad inay qaadato hadba waxay ku xiran tahay xawaraha network-ga ee computerka marka inta aanu synchronization-kan uu nooga dhammaanayo waan noo pause garaynayaa si aan u aragno wejiyada dambe ee qaybta dambe ee gudaha ah asxaabta waana isku soo noqon doonaa muddo oo soo socotay hadda waxa ay timid qaybtii aan ku samayn lahayn in aan wallet-ka soo samayno wallet-kii setup-na aan u samayno waxaad imaanaysaa halkan qaybtan oo ay ku keenaysaa qaybtan restoration waaye haddii aad horey u haysatay oo aad backup ka samaysatay ama 12 eray oo hore aad haysatay ama import fall
file aad haysatay oo dot ahay ee wallet ah. haddii kale waxaad sameynaysaa create ayaad leedahay oo mid cusub ayaad sameynaysaa. waxayna ku siinaysaa markaasi in aad timaado halkan oo aad geliso magacii walletka aad rabtay, password labada dhinac aad gelinaysid, kan ayaad geline mar labaad ayaad ku rabid gareyne. waxaana laga rabaa passwordkaas inuu noqdo 7 eray oo ugu yaraan ahaa, iyo in erayo waaweyn iyo erayo yaryar iyo xarfo ay isugu jiraan lambara ah, taas oo sukuuradkeeda kuwa adkeyn karaysa. kadibna waxaad heli karaysaa oo aad u gudbaysaa qaybtan dambe oo iyana ah qayb kuu cadeynaysa 12 eray in aad noqoto qofka keliya ee arkaya 12kaas eray ee walletka Daedalus wallet ay ku siin doonto, oo aad coinkaadan ADA ama Cardano aad ku kaydsan karayso, isla markaana aad ugu diyaar garoobayso update-ka weyn ee 1.5 ee Shani oo jidka kusoo jira oo aan aad u dheerayn. waxaad leedahay agree select ayaad leedahay, continue ayaad leedahay, waxayna soo set up garaynaysaa walletkii. waxaadna imaan karaysaa markaasi oo aad samayn kartaa, oo haddii aadba jeceshahay qaybtan settingka oo kale inaad timaado in aad walletkii kalaradeedii iyo waxa aad ahaydbo aad ka bedelato qaabkan ayadoo yara cad, ayadoo light blue ah, ama ayadoo dark blue ah, oo qaabkan hadda oo kale madow blue brainka ah oo kale ah. hadba qaabkii aad jeceshahay ayaadna usoo dejisan karaysaa. walletkana waxaad kasoo dejisan karaysaa websitekan weyn ee Daedalus.io ayaad kasoo dejisan karaysaa, oo isna ah website aamin ah, isla markaana ah websiteka keliya ee Daedalus wallet laga soo dejisan karayo. qaybtan ayaad imaanaysaa, operating systemkii aad haysato ama computerkaada nooca uu yahay ayayna linkigeeda ku siinaysaa. haddii uu ahaan lahay macbook, ama haddii uu ahaan lahay window, ama linux ba haddii uu ahaan lahay, waana wallet aman ah 100% dhinaca backupkeeda iyo protocolkeeda intaba. waxaana jeclahay coinkan Cardano iyo projectyada uu soo wado in video kale aan idinkula wadaago, balse waa saaxiibkiin Sayid Cali oo idin leh kiribto aadan adigu haysan ama aadan xafidin, kiribtadaada ma aha. haddaba ku dadaal in kiribtadaada aad adigu ama lacagtaada digitaalka ah aad adigu gacantaada ku xafidato. gaar ahaan Cardano yaan loo moogaan oo isha ha u furaato. qoladii ka faa'iideysan karta ama qofkii jaanis u helana inta uu iminka maraya 4 senti ee dollarka Mareykanka ah, nasiibkiisa ayaan dhihi lahay qofka. iyo sanadka kale ee 2020 xilligaas oo aanu iska wareysan doono muuqaalkani 4 senti ah iyo maalintaas waxa uu noqdo. waa Sayid Cali oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo.